afraad aan la magac baxay statistics. maanta waxaan qaadanaynaa cashirka shanaad. waxaa la yiraahdaa cumulative frequency curve or GAFE, laakiin marka kan waa greater than series ama more than series. marka more than series ka ayaan qaybta tan ku eegi doonaa hadduu ilaa yiraahdo. for greater than series ama more than series ka marka aan rabno inaan graph garayno, waxaan leenahay marka on a graph paper warqada aan wax ku sawirayno, we mark waxaan qaadanaynaa the lower class limits along the x-axis ayaan dhigaynaa. marka lower class limit ka ayaan qaadanaynaa, x-axis kaan dhigaynaa. kii hore wuxuu ahaa upper class limit ka ayaan qaadanaynay oo x-axis kaan dhigaynay. the corresponding cumulative frequency along y-axis, marka mid kastana cumulative frequency ku beegan y-axis kaan dhigaynaa. marka on joining these points successfully by the line segment, haddii aan baraha isugu xirno xariiq, we get a polygon called cumulative polygon frequency polygon. marka haddii aan baraha isugu xirno xariiq isugu xirno, marka waxaa inoo dhalanaya polygon la yiraahdo cumulative frequency polygon la yiraahdo. marka on joining these points, marka haddii baraha laakiin aan isugu xirno successfully by smooth curves, we get marka waxaan helaynaa a curve xoodaan helaynaa known as xoodkaana waxaa loo yaqaan cumulative frequency or an GAFE ayaa la yiraahdaa. marka how to obtain median from the cumulative frequency, marka sida aan usoo helayno qaabkii hore ayuu la mid yahay. marka waxa way draw either less than type or more than type. ku yahayba marka hore graph garay oo sawir, kadibna waxaa soo heshaa n divided by 2. marka n divided by 2 qiimaha ku soo baxay waxaad ka soo qaadaa point B inay tahay, pointigaas B xariiq ka soo qaad, xariiqdaas oo taabanaysa curvigaaga Q bar la yiraahdo ka taabanaysa. marka step 4 Q waxaa ka soo qaadaa xariiq la yiraahdo MQ taasoo perpendicular x-axis ka ku noqonaysa, marka M na ka taabanaysa x-axis ka. marka meesha ay iska jaraan x-axis ka iyo perpendicular line ka ayaa waxaa ka sameysmaya median ka. marka qaybtaas marka qaybihii hore ayaan kusoo baranay oo nuguma cusba. qaybta tan marka tusaalaha inoo yaala wuxuu leeyahay for the following, marka the frequency distribution draw waxaa sawirtaa marka a cumulative frequency for more than type, nooca moodanka ah ka sawir and hence obtain the median value. median kana soo hel. marka dabcan waa samayn karnaa sidii caadiga ahayd ayaan u sameynaynaa. marka okay, marka aan rabno inaan graph garayno, marka waxaan qaadanaynaa waxaan qaadanaynaa aan ilaahdee more than series ka qaabka kan ayaan u diyaarinaa. table kan waxa la qaatay dabcan halkan ku xusan waa lower limits ka classes ka lower limits ka la qaatay. haddii aan classyadii ku laabano lower limit ka waxay yihiin ama haddii aan kasoo bilowno midka ugu geysaya ama ugu shisheeya, lower limit-yada waxay yihiin marka 60 50 mataqaan 40 30 20 10 ilaa 5. marka bartamahaas oo kale ayaa la qaatay. marka waa ka marka waxaa laga soo bilaabay 60 50 40 30 20 10 ilaa 5 ayaa la qaatay. marka class frequencies ka ku beeganna waa la sameeyay. marka classki ugu dambeeyay frequency-giisa laga soo bilaabayaa. marka classki ugu dambeeyay frequency-giisa haddii aan kasoo bilowno 9 ayuu ahaa. marka kadibna si isku dar ah u wad. haddii kale waxaa samayn kartaa classkaas classka ugu dambeeya kan ka bilow. markaad ka bilowdo oo classka hore ka bilow 5 ka bilow, kadibna waxaad samayn kartaa si isugu xigta adoo ka bilaabaya numberka hore kadibna numberada ka dambeeya mid walba ka gooynaya. taana waa samayn kartaa. marka qaabkaasna waa loo sawiri karaa ama waan u sawiri karnaa. marka aan rabno marka qaybta tan inaan graph garayno inay inoo fududaataan rajaynaya graafkeeda. marka waxaan qaadanaynaa 60-ga horizontal axis-ka ayaan dhiganaynaa. dabcan haddii aan u dhaxaysiino marka 10 kala noqonaysaa 10. okay, marka 5 iga bilow meeshaas maadaama ay 5 ka bilaabato oo igu yar tahay waxaan leenahay 5. okay, 10 20 okay, 25 30 35
okay 40 45 okay 50 55 okay ilaa iyo 60 ayuu gaarayaa markaa dib malahan ilaa iyo 60 ayuu gaarayaa marka kanna waxaan qaadanaynaa inaan iraaho 10 aan u dhaxaysiino ilaa iyo 100 aan qorno markaa 10 20 30 40 50 markaa 60 70 80 okay 90 kadibna 100 intaas aan isla muujino oo sidaas u qorno kadibna barahan siday isugu aadan yihiin aan sameeyno dabcan 5 waxa ku aadaysa 100 marka pointiga ugu sareeya ay noqonaysaa marka halkaas ayay oo pointigaas dhici doonaa marka pointiga ku xigaahi waa 5 10 ku xiga 10 waxa ku beegmi doonto 95 waa mid wax yar oo ka hooseeya ama ku xigaahi saas ayuu noqonayaa marka barta ku xigta waa 20 na waxa ku beegan 80 marka 80 ayaa ku beegan ayana sidaas ay noqonaya waxa iigu xigto 30 na waxa ku beegmaysa dabcan 30 waxa ku beegmaysa waa halkaas oo kala 60 ayaa ku beegmi doonta 30ka waaya waxa iigu xiga okay 40 ayaa iigu xiga 40 waa kan waxa ku beegan 37 marka waa meel 40ka ka hooseeya 30kana ka koreeyo marka halkaas oo kale waayahay midka ii xigaayo wuxuu noqon doonaa 40 oo ka ahaa 50 aan iraahdo meesha 50 waxa ku beegan isaga 20 meel wax yar un koreyso noqon doonaa ugu dambeyn 60 waxa ku beegan isaga 9 saas uu noqon doonaa marka hadii aan curve-ga isku xiro markaas saas uu noqon doonaa marka barihiisa ama pointiyadii uu ka samaysmayna qaabkaas ay noqonayaan marka curve-ga saas uu noqon doonaa waayahay marka aan medianka u baahanahay ama aan rabo inaan medianka soo helo marka hore waxaan isticmaalayaa n divided by 2 n waa 100 maanta totalka frequency waa 100 markaan laba u qaybiyana 50 ay soo baxaysa marka 50 halka ayaa ku aadan meel halkaas oo kale ku aadan ayuu noqon doonaa markaan xariiq ka qaado isagana wuxuu ku aadi doonaa 35 ayuu ku aadi doonaa qiyaas ahaan marka curve-ga weli ma hagaagsana marka 35 ayuu ku aadi doonaa therefore medianka waxaan leenahay isaga waa 35 ayuu noqonayaa in this time marka 30 iyo wuxuu noqon doonaa mataqaan 5 waaya example-ka qaybtan iigu xigaahi waxaa la leeyahay during the medical check-up of 35 students of a class their weights were recorded as follows marka inta lagu guda jiray check-up lagu sameynayay arday mataqaanaa dhanka weydkooda ah ama culeysyadooda ayaa xogta tan soo socota la record gareeyay marka xogtan halkan ka muuqata waxaa lagu leeyahay draw less than type and more than type labadaba ka sawir xogta tan the given data hence obtain the median marka labadaba markaad ka sawirto kadib median ka soo hel markaan labadooda sawirno waxaa dhici doonta labadan type inay isjaraan marka barta ay iska jaraan ayaa waxaan ka soo qaadaynaa xariiq toosan xariiqda marka meesha ay ku aado ama numberka ay ku aado ayuu medianka iyo noqon doonaa marka less than-ka aan u nimaano marka hore less than-kaan ka bilaabaynaa less than-ka graafkiisa isaga ma dhib badnaan doono qaybta marka aan rabno inaan graaf garayno ama aan sawirno dabcan horizontal axis-ka waxaan dhigaynaa qiimooyinkaas ayaan horizontal axis-ka dhigaynaa marka haddii aan ka bilowno 40 okay haddaan ka bilowno marka 40 42 44 46 48 50 ka qiimooyinkaas halkaas aan dhigaynaa vertical axis-kana
dabcan qiimooyinku waa 35 qiimaha ugu sareeya marka ayaan ka bilaabaynaa ama qiimaha ugu hooseeya marka wuxuu ii noqon doonaa sida muuqata waa 3 haddii aan qiimooyinka wada dhigno 5 waa yahay 9 cumulative frequency weeyaan qiimooyinkaas marka 9 14 okay 14 28 okay qiimaha ku xigaahina wuxuu noqon doonaa 32 qiimaha ku xiga wuxuu noqon doonaa 35 isna marka aan barahaas isku aadiyo barta koowaad halkaas ay noqon doontaa dabcan pointiga labaad halkaas ayuu dhici doonaa kan saddexaad sidaas oo kale haddii aan mid kasta midkeeda u beego marka halkaas ayuu noqon doonaa midka ku xigaahi meeshaas oo kale ayuu dhici doonaa kan ku xigaa halkaas oo imaan doonaa barta ugu dambeysana 35 ayay ku aadi doontaa marka haddii aan keerbiga isugu xirnana qaabkaas ayuu u muuqanayaa marka mordan markaan yiraaho iyadana 30 marka iyo 5 ayay inooga bilaabanaysaa oo dabcan 50 ayaan ka bilaabaynaa isaga 50 kan ka bilaabaynaa 50 waxaa ku aadan dabcan 35 ayaa ku beegmaya marka 35 ku beegmaya 50 meeshaan ka bilaabaynaa isagan 50 hadii la yiraahdo 35 ayaa ku beegan marka okay marka mordan isagana waa kan aan qiimaha haysano hadii aan mordankan qaybtaas isagana aan raacino marka labada graph dabcan waa dhowto waa isbarbar dhigi doonaa waan arki doonaa mid aan qaadaynaa kan kale aan u geynina markaas oo in noqon doono waan arkaynaa marka qaybta tan iyadana waxaan ka bilaabaynaa dabcan inaan qaybtaas qaadano oo ah 38 waa yahay waxa iigu xiga 40 waxa iigu xigaahi waa 42 waxa iigu xigaahi waa 46 48 okay 50 isna saas oo ii noqonaya marka nambarada hadii aan meesha ku qorano waxaan ka bilaabayaa markaas 3 waa yahay 7 nambarka ugu hooseeya hadii aan ka bilaabo dib malahan 20 iyo 1 26 ka cumulative frequency yada hadaan meesha ku qoro 32 ugu dambeyn 35 sida isugu beegan yihiin aan ku beego dabcan qaybta ugu horeysa 35 ayaa ku beegmaysa marka halkaas ayuu kasoo bilaaban doonaa qaybta ku xigta 32 ayuu ku beegmaysaa halkaas ay noqonay marka qaybta tanna waxay ku beegmi doontaa halkaas marka qaybta ku xigtaahi waa 20 iyo waxay noqonaysaa 6 ayaa ku beegmi doonta qaybta ku xigta waxaa ku beegmi doonta 21 okay 21 ayaa ku beegmi doonta qaybta ku xigta 7 weeyaane waxaa ku beegmi doonta iyo 8 iyo 30 kana saddexdana waxaa ku beegmi doonta 50 marka sawirka isagana qaabkaas ayuu ii noqon doonaa marka labada sawir haddii aan isku fiirino labada sawir ama labada graph marka midkood aan midka kale u keenno dabcan midna wuxuu kasoo bilaabanayaa qaybta sare midkan waa qaybta sare oo kasoo bilaaba hoos ayuu usoo dalandoonayaa marka midkaasna qaybta hoose ayuu ka bilaabanayaa marka isna mataqaanaa kor ayuu aadayaa marka labadaas graph haddii aan isdhexgelino ama midba midka kale aan u geyno waxaa inoo noqonaysa ama graafku u muuqanayaa haddii aan midkaan hadda qaadno oo dabcan midkii dambe ah aan midkaa kore u geyno marka sidaan ayuu graafka u muuqanayaa marka sidaas ayuu u muuqanayaa marka marka ay iska jaraan haddii aan xariiq ka qaadno marka xariiqdaasna kusoo aadino halkaa marka waxay ku aadi doontaa xariiqdaas 46 marka meynka oo waxyar raacay marka haddii aan nidhaaho mediankayga waa 46 dhibic haddaan iska qaato 5 waxaa laga yaabaa in uu true ku keeno maadaama graafka uusan exactly ahayn halka ka marka cashirka kan marka sidaas ayuu inoo noqonayaa marka
exercise aan haysanaa 4.5 wuxuu ina leeyahay markaa sawir markaa less than type-ka iyo more than type-ka labadan xabo midna waa more than type midna waa less than type marka waxaan rajeynayaa in si wacan loo graph gareyn doono ama loo sawiri doono marka waxaan idinkaga tegaynaa sida